waxaana wanaagsan daawadayaal soo dhawaada waxaynu idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey Siciid Dani iyo Ciro oo bilaabay qorshaha Ceerigaabo iyo wararkii ugu dambeeyey iyo waxyaabaha ka soo kordhay ayaan halkan idinkula wadaagi doonaa daawadayaal. Soomaaliya oo halis ugu jirta in mar kale lagu soo rogo cunaqabatayn sababta ayaan sidoo kale idinla wadaagi doonaa saaxiibayaal. Fahad Yaasiin oo markaasi u kala garqaaday Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya kadib xiisadii ka dhalatay arrinta hubka. haddaba intaynu guda galin marka koowaad soo dhow muuqaalkan like saar sina shirgare si dad badan uu u gaaro. Maamulka Puntland ayaa ku dhawaaqay in uu diyaar u yahay in magaalada Ceerigaabo lagu wada noolaado si nabad ah, taasoo qayb ka ah dadaalada lagu xasilinayo gobolka Sanaag. Puntland waxay si toos ah u taageertay gogol nabadeed uu dhowaan fidiyey madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro, iyadoo maanta odayaal dhaqameed u dirtay gogoshaasi. Go'aankan ayaa muujinaya isbeddel ku yimid mowqifka Puntland, iyadoo hore khilaaf markaasi uga jiray lahaanshaha magaalada Ceerigaabo oo ay labaduba markaasi sheeganayaan. Gudoomiyaha gobolka Sanaag ee Puntland Siciid Axmed Jaamac Badmaax ayaa si cad u sheegay inay doonayaan Ceerigaabo ay markaasi wada leeyihiin dadka deegaanka, isla markaana qof walba uu xor u yahay fikirkiisa iyo deegaan markaasi deganaanshihiisa. Waxa uu sheegay in haddii nabad markaasi lagu heli karo taas ay diyaar u yihiin. Si ay markaasi uga qayb qaataan gogasha nabadda, Puntland waxay u dirtay waxgarad reer Puntland ah magaalada Ceerigaabo. Badmaax waxa uu sheegay in xubnahaasi ay matalayaan rabitaanka maamulka iyo shacabka gobolka. Ugu dambeyn, gudoomiye Badmaax waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey wadahadallada socda, isagoo yidhi waxaan u maleynayaa in wixii ay noo soo qaadaan aysan markaasi noqonayn wax aan ku dulmannahay. Hadalkan ayaa muujinaya in Puntland ay diyaar u tahay wadahadal dhab ah oo ku salaysan isqadarin iyo sidoo kale nabadda. Dabayaaqadii 2023 Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay waxa uu si rasmi ah u qaaday cunaqabatayntii hubka ee saarneyd Soomaaliya tan iyo 1992, taasoo dowladda federaalka u suurtagelisay in ay si toos ah u soo dhoofsan karto hub iyo qalab militari si ay markaasi ugu adeegsato dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Hase yeeshee, tan iyo markii cunaqabataynta la qaaday waxaa soo kordhay walaac xooggan oo la xiriira sida hubkaasi ku soo galaya dalka uu mararka qaar ugu gacan galo dad aan markaasi matalin dowladda, taasoo khatar ku ah ammaanka gudaha. Tusaale ahaan, toddobaadkii hore ciidamada badda ee Puntland ayaa gacanta ku dhigay markab lagu magacaabo Seaworld, kaas oo ku soo xirtay xeebta bareeda ee gobolka Bari. Markabkan oo ka yimid dalka Turkiga ayaa siday gaadiid dagaal, hub culus iyo agab militari sida la sheegay. Hubkaasi waxa uu ku socday magaalada Muqdisho, gaar ahaan xerada Turkisom oo ay maamusho dowladda Turkiga. Maamulka Puntland waxa uu sheegay in uu markaasi baarayo hubka saaran markabka, halka dowladda federaalka Soomaaliya ay si cad uga hadashay arrintaasi, waxayna markabka ku tilmaantay mid markaasi la afduubtay, iyadoo ku baaqday in si degdeg ah loo fasaxo. Falanqeeyaal badan waxay dhacdadan u arkaan tusaale kale oo muujinaya kala qoqobka ka jira xiriirka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada marka ay timaado la wareegidda iyo xakamaynta amniga qaranka. Sidoo kale waxaa xusid mudan in markaasi dhacdo kale oo walaac dhalisay oo bartamihii sanadkii hore ka dhacday magaalada Caabudwaaq ee bartamaha Soomaaliya, halkaas oo dad markaasi deegaanka ay qabteen 2 gaari oo siday hub culus, lamana caddayn markaasi cidda iska leh hubkaasi, mana cadda halka loo waday. Muuqaallo xilligaasi lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujiyey hubkii oo gacanta u galay dad rayida, taasoo sii kordhisay walaaca laga qabo hub aan markaasi la xakamayn oo gudaha dalka ku sii faafay. Inkastoo nidaamka caalamiga ah ee xakamaynta hubka uu aqoonsan yahay dowladda federaalka, haddana maamul goboleedyada iyo maleeshiyaadka deegaanka ayaa weli haysta awood ay ku hor istaagi karaan hirgelinta siyaasadda amni ee dowladda dhexe. Meelaha lagu qabtay hubka intooda badan ma jiraan ciidamo dowladda dhexe ka tirsan oo ka taliya, taasoo sii adkeynaysa isku-dubaridka dowladda iyo maamul goboleedyada. Sida ay tilmaamayaan falanqeeyaasha, nidaamka federaalka ee Soomaaliya wuxuu xadiday awoodda dowladda dhexe, taasoo ka hortagaysa in tallaabooyin amni oo qaran markaasi la qaado. Hubka si aan sharci ahayn ku soo gala dalka, kuna dhaca gacanta dad aan dowli ahayn, waxuu noqon karaa sabab dib markaasi u fura wadahadallada ku saabsan in mar kale cunaqabatayn hubka ah lagu soo rogo Soomaaliya. Dhinaca kale, agaasimihii hore ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa ka hadlay arrinta markabka hubka ee dabka ku sii shiday xiisadda Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya, isagoo sheegay in laga gardaran yahay dowladda dhexe. Fahad ayaa nasiib darro ku tilmaamay in madaxweynaha Puntland Siciid Dani aysan u kala saarnayn khilaafka siyaasadeed ee kala dhexeeya madaxweyne Xasan Sheekh
iyo awoodda markaasi sharci ee dowladda dhexe. Madaxweynaha Puntland Siciid Dani wuxuu musharax u yahay xilka madaxtinimo heer federaal, haddana wax qadarin ah uma haya dowladda federaalka, isagoo Puntland kaliya markaasi xukuma. Haddii uu sidaasi sharciga ugu tumanayo, waxaa laga filan karaa mustaqbalka, ayuu Fahad Yaasiin ku yidhi qoraal cusub oo uu maanta daabacay. Dhinaca kale, agaasimihii hore ee NISA waxa uu siyaasiyiinta mucaaradka ku dhaliilay sida ay uga aamuseen arrintan xasaasiga ah. Madasha samata bixinta Soomaaliyeed si sahal ah waraaqo way u soo saari karaan marka ay kasbanayaan dareenka Axmed Madoobe iyo Siciid Dani, laakiin way ka aamusayaan marka dowladda federaalka laga gardaran yahay, ayuu yidhi.